guurkii ayaa iga soo daahay. Qof walbo aan wada sheekaysano oo ilaa heer guur aan isla gaarno, asaga ayaa ballantii ka baxaayo ama waxaa imaanayaba arrimo isku kaayadiraayo oo sababayo in uu ballantii guurka burburto. Markuu guurka iga soo daahay oo qof walba aan heshiin la'nahay ayaa qof walba wuxuu leeyahay waa lagu sixray. Waxaa lagu sixray sixir guurka dibdhigaayo. Waxay tiri waxaan ku riyooday riyooyin badan oo argagax leh oo laygu sheegaya in la sixray. Kadib Ilaahay ayaa i waafajiyay inaan joogteeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan walaalaha khayrka jecel ee nagu xiran soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub aad u xiiso badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in uu noo siyaadiyo nimcooyinka uu na siiyey. alxamdulilaahi daa'iman waabadaa. Intaa kadib soo dhawaada axbaabii, waxaan idinla wadaagi doonaa maanta qisas cajiib ah oo ku saabsan saliid xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Qisadeena koowaad maanta waxaa inooga sheekeynaysa gabar. Qisadan waxay ku saabsan tahay gabar guur uu ka soo dahay kadibna faraj uu u noqday saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Haddaba gabadhan sidee ayay u dhacda qisadeeda? Waxay tiri waxaan ahaa gabar dhalinyaro ah, waxaan ku jiray da'dii guurka, waxaan nasiibkayga iyo calafkayga sugaba waqtigii ayaa socday oo isguray ilaa aan gaaray 30. Marka hore waxaan islahaa weli calafkaaga sug, laakiin waxaan dareemay marka dambe inuu waqtigii socdo oo wax soo socdan ay jirin. Way jireen rag badan aan sheekaysanay oo wada hadalnay oo xitaa guur aan isla gaarnay, laakiin qof walba dagaal iyo isku dhac iyo isfahmi waa ayaa imaanayso. Ugu dambeynna waxaaba dhacayaba in guurkii uu meeshaas ku istaagay heshiiskiisii. Qof walba isoo doonto wax baan isku dagaalnaa, qof kastoo sheekaysano wax baan isku fahmi weynaa. Dadka familkeyga iyo asxaabteyda waxay leeyihiin waxaan u malaynaynaa in adiga lagu sixray oo guurka lagaa sixray. Waxaa dhacday in aan ku riyoon jiray riyooyin argagax leh. Riyooyinkaas marmarka qaar waxaa liigu sheegi jiray in la isixray. Ugu dambeyntii waxaan bilaabay saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Maxamed. Saliga nabiga ayaan bilaabay ayay tiri. Waxaana akhrin jiray 60,000 oo mar. 60,000 oo mar ayaan ku salin jiray xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. bilooyin kooban markii aan waday, Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qadaray inaan isbaranay wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah ragga kuwooda ugu fiican. Aan heshiinay ugu dambeynna uu noqday guurkaas guur hirgala oo Alle subxaanahu wa tacaala ina waafajiyey. Wiilkaas wuxuu noqday wiil aad iyo aad wanaagsan, famil wanaagsan ka soo jeeda, hanti leh, dhaqaale leh, ahlu diin ah. alxamdulillaah ayay tiri fadliga Ilaahay iyo barakada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu Alle igu irsaaqay guurkii aan sanada raadinayay. Guurkii aad badan ilhaayeen maad guursatid, dadka facaaga ama gayaankaaga way guursadaan. alxamdulillaah Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaaba khayrka ii dibdhiga oo waxaan is idhi khayrkan ayaa kuu dambeeyey. alxamdulillaah. gabar walbo iyo wiil walbaba ha quudsanina, marna ha rajo dhigina. akhriya ku dadaalo saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynay wiilkan wuxuu leeyahay waxaan ka qayb gelaya tartankaasina waxaan rabay inaan guuleysto. tartan ayaan ka qayb gelayay, tartankaasina waxaan jeclaa inaan guuleysto. inkastay u ekeed ama u muuqatay inaan guuleysto arrin adag, laakiin Ilaahay subxaanahu wa tacaala kama rajo dhigin. waxaan soo kacay habeenkii qaybta dambe, waxaana fadhiistay meel, waxaan bilaabay inaan akhriyo saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. anigoo niyadeyda ay ku jirto inaan ku guuleysto tartankaas ayaan akhrinayay saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. waxaan soo kacay habeenkii xilliga dambe ilaa iyo maalintii tartanka la gelayay, afkeyga marnaba kama joojinin saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. ugu dambeyn tartankii waa la galay, waan guuleystay, waxaana noqday qofka ugu buundada badan amaba ugu sarreeya ee kaalinta koowaad galay tartankii. rajadii aan islahaa ma rumoobeyso, Alle subxaanahu wa tacaala waa uu ii rumeeyey kadib markii aan akhriyay saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. qisadeena xigta maanta waxaa inooga sheekeynaysa
gabadhaani waxay leedahay maanan arkin wax la mid ah saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan ibraahimiyada oo ah allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. markii aan akhriyay ayay tiri waxaan dareemay farxad, waxaan dareemay noloshayda raaxa iyo deganaan, waxaan helay howlo fara badan. ilaahayna subxaanahu watacaala xanuun ihaayay ayuu iga caafiyey. alxamdulilah alxamdulilah. ma arkin wax aan la meel dhigo ama wax la mid ah saliga xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam. qisadeena xigta waxaa inooga sheekeynaya wiilkana wuxuu leeyahay waxaan rabay inuu ilaahay subxaanahu watacaala isiiyo xoolo fara badan, waxaan ahaa qof iska dhalinyaro ah oo dembiyada iska fududeysta ayuu yiri. markii dambe ayaan waxaa bilaabay inaan akhriyo saliga xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam anigoo u niyeysanaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala iigu dambi dhaafo iguna siiyo lacag. haddaba waan bilaabay akhrintii saliga xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam. muddo ayaan laazimay oo waday ilaa uu ilaahay subxaanahu watacaala muddo 2 bil gudahood ah aan qiyaasay inuu iigu dambi dhaafay maadaama uu isiiyey ilaahay subxaanahu watacaala wixii aan weydiistay oo ahay xoolo. qof kasta waxaan kula dardaarmaya oo walaalahayga ka mid ah inuu akhriyo saliga xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasalam. wuxuuna yiri maalin walba waxaan akhrin jiray 1 mar ayaan u akhrin jiray qaabka ibraahimiyada. 1 mar ayaan maalin walba u akhrin jiray allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كن مرة يعني هجري. هذا بقى صلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. waxaa lagu helaa barako, waxaa lagu helaa dambi dhaaf. haddii aad ilaahay subxaanahu watacaala arrin ka rabto ama aad ka rajaynayso marka aad ducaysanayso ku bilow saliga xabiibkeena maxamed. intaad ducada bilaabin dheh allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid. kadibna ducayso oo waxaad rabta ilaahay subxaanahu watacaala weydiiso. markaad intaas samayso kusoo gabagabay ducadaada saliga nabiga. ku bilow saliga nabiga, ducayso, kadibna ku gabagabay saliga xabiibkeena maxamed. insha allah ilaahay ducada wuu kuu aqbalaya. waxyaalaha ducada lagu aqbalo ayay ka mid tahay saliga xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam. waxay ka mid tahay waxyaalaha xoolaha lagu helo, waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu helo awlaada, waxay ka mid tahay waxyaalaha lagu helo risqiga, waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu helo caafimaadka. marka haddii aad ilaahay subxaanahu watacaala arrin ka leedahay, marka hore ku bilow saliga xabiibkeena maxamed, ducayso, kadibna u dib mari saliga xabiibkeena maxamed sallallahu calayhi wasallam. markii aad ducaysanayso ama aad ilaahay subxaanahu watacaala wax weydiisanayso, waxaa muhiim ah niyadaada inay yaqiinsan tahay inuu ilaahay waxaan ku siinayo. haddaad aaminsan tahay in ilaahay waxaan uu ku siinayo waa xaqiiqood helaysaa. waayo alla subxaanahu watacaala xadiithul qudsi wuxuu ku leeyahay ana cinda dhanni cabdii bihi. aniga addoonkayga wuxuu iga maleeya ayaan ahay. tusaale ilaah ayaad bariday, waxaad aaminsan tahay inuu ducadaada aqbalayo, ilaahay wuu aqbalayaa. ilaahay ayaad bariday, waxaad aaminsan tahay in ducadaada aan la aqbalaynin, lama aqbalayo. waayo adiga ayaa aaminsan, adiga ayuu ilaahay niyadaada kuu rumeeyey. marka niyooyinka aan wanaajisano si ilaahay subxaanahu watacaala uu niyadeena wanaagsan noogu aqbalo. waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel. haddaa meeshan soo gaartay muuqaalka like saar si ay u gaaraan walaalo badan. qaybta hoose commentigan aan kusoo qorno saliga xabiibkeena maxamed. wasalaamu calaykum.